الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan isla yara eegno arrin aad ila weyn oo guusha iyo horumarkaan raadinayno sabab weyn u noqon karta dabeecadda insaanka ay ka mid tahay inuu jecel yahay oo uu rabo sarreyn iyo awood laakiin marar badan awoodahaas waxaan ka raadinaa meelaha ay taalo meelan ahayn awoodda dhabti waa taa adiga kuu saamaxday inaad naftaada ka adkaato awoodda dhabti waa ta fursad kuu siisa inaad adigu naftaada u qabato jiheeyaha ood adigu maamusho naftaada iyo noloshaada inta adiga naftaada iyo noloshaaba ay ku maamuli lahayn inaad ka adkaato naftaada ood adigu noqoto fal curiyaha noloshiisa wax fudud maaha oo cid walba samayn karto waa wax u baahan edeb iyo habdhaqan joogto ah inaad awood dhab ah leedahay waxa muujinaya xilligaad kacdo maadaama nuli awoodda dhabtii waa ta kuu saamaxday inaad adigu iska adag tahay noloshaadana ka adag tahay awooddaasi waxa dhisa oo keena edeb iyo akhlaaq iyo dhaqan joogtayn la yidhaah awooddaada waxaa laga qiyaasi karaa xilligaad kacdo xilligaad waddada ka kacdo ayaa laga qiyaasi karaa in fact dad badan oo awood isbidaya nafahooga ka adag oo noloshooda ka adag waxaad moodaa inay addoommo u yihiin doonista naftoodu waxay iska jeceshahay iyo waxyaabaha uu ku dareemo raaxada iyo sayfka so markaynu leenahay qof awood badan baa tahay waxaynu u jeednaa waxaad keliya waxa kuu fudud inaad waxa naftaadu ay ku raaxaysatay aad sayf ku dareemayso aad ka doorbido waxa dhab ahaan muhiim u ah noloshaada leh ahmiyadda kuugu horeysa ee koobaad so haddii ay jiraan arrimo ahmiyada kuule oo muhiimada kuule oo kugu weyn oo meel sare ka taagan qalbigaaga waxaasina aanay ahayn waxaad u dhowdahay maalin walba ama qabashadooda ku hawlan tahay in fact waxa kaa adag naftaada iyo noloshaada marka siraha inaad qof awood leh oo hore u socod leh oo u dhowaanaya meesha uu u malaynaya inay barwaaqadiisa taalo inaad noqotaa waxay ku saabsan tahay keliya inaad maamusho daqiiqadaha ugu horeeya maalintaada halkaasaa awoodda dhabtaa ee naftaada iyo noloshaada laga qaataa inaad maamushood ka adkaato daqiiqadaha ugu horeeyaed indhaha kala qaado ee maalintaadu bilaabmayso that's where the true power lies halkaas weeyaan meesha awoodda dhabtaahay taalo waxaa jirta koox la idhaaho kooxda 5 aroornimo ama 4 aroornimo kacda the 5 AM club you can call it the 4 AM club ayaad ugu yeeri kartaa waxaad ugu yeeri kartaa 4 AM club dadka caadooyinka hore u kaca leh ee markay kacaan kicidu maahee daqiiqadaha ugu horeeya ee maalintooda maamulan yaqaan ee maskaxdooda iyo aragooga iyo hadalkooga ku khasba oo ku jiheeya inay ku fooganaadaan waxa muhiimka u ah ee la weyn qalbigaaga dadkaasaa dhab ahaan awood leh dadkaasaa dhab ahaan noloshooda ka adag oo naftooda ka adag sida caadigaa waxaad aragtaan oo waad moodaa inay la jiheeyaan waxyaaba baahiyahayna hor yaalla duruufahayna hor yaalla dadka nolosheennu la xidhiidho umuuraha nolosheennu ku saabsan tahay waxaad moodaa inaan mar walba ku mashquulno waqti badan iyo tamar badan ay naga qaadaan oo kuwa xalintoodu ay waqti badan ay naga galo laakiin haddii marka horeba aynu qorshaysano inaan ka adkaano qabsano daqiiqadaha ugu horeeya maalinteena waxa fududaanaysa inaad adigu fal curiya noqoto intaanad ka jawaabin maalintaada markaad soo toosto waxa maalintaada hor yimid inaad adigu abuurto waxa ay tahay inaad qabato maalintaa so sirtu waxay taallaa un marka hore toosayso ee maalintaada bilaabayso waxaad ku bilaabaysaa ruux wax ka fal celinaysa oo wax ka hadla
hadlaysa oo wax ka sheekeynaysa mise marka horeba waxaad ku bilaabaysaa ruuxtaa ka sarreysa oo ah waxay qaban lahayd iyo waxa muhiimka u ah maalintaa inay qoratay oo waxa ay rabto inay ugu horreynba qabato wax kasta ka hor so proactive iyo reactive baa la kala idhaha waa falceliye qof ka jawaabaya duruufaha u arko iyo falcuriye qof curinaya ama qabanaya qof ahmiyadihiisu garanaya kadib qabanaya ahmiyadaha wax kasta ka hor intuu nolosha kale ku mashquulin so awoodda dhabtii waxay taalaa inaad qabato oo maamusho oo kasbato oo aanad waan ka gelin midhidhada iyo daqiiqadaha ugu horeeya noloshaada markaas ay noqoto marka aad si dhaba u qorshaysato ahmiyadahaaga eed go'aansato maxaa maanta aniga ii muhiima intaan wax kale faraha la gelin so haddii intaasi timaado intaasaad ka adkaato waxaa kuu fudud inaad nolosha adu wax u yeedhiso inaad waxa kuu muhiimkaa si fudud u aragto una raacdo in waxyaabahaan kuu muhiimka ahaynee dhabqiyayaasha la idhaahee kaa dhabqinaya dariiqa aad haysato inaad si fudud u jiidho ama aad maya si yaroo fudud u tiraado marka awoodda dhabtii waxay taallaa markaad toosayso hadaad doonaysa inaad noloshan yar ku noolnahay natiijooyin macnale ka samayso nolosha dambeen dhammaanayna meelo lama jeerto gaadho awooddu waxa weeyaan inaad ka adkaato naftaada oo kuu saamaxaysa inaad ka adkaato noloshaada taasina waxaa laga qiyaas qaataa markaad kacdo iyo waxaad qabato markaad kacdo halkaas awoodda dhabtii taala maskaxdeenu waxay u shaqeysaa 20 midhida ugu horeeya nolosheena xawaaraha ugu sareysa ku shaqeysaa macnaheedu waxa weeye waxay aqbashaa xilliga wax kasta oo u yeedhiso waa xilliga